iyadoo ururo badan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ay ka jiraan Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaas oo aan lahayn dalad ay ku midaysan yihiin oo urur walba si gaar ah u shaqeeyo ayaa magaalada Baydhabo maanta waxaa lagu doortay urur lagu magacaabo gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen ay yeelanayso dalada midaynaysa dhammaan ururada bulshada rayidka ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed. Cali Macalin oo kamid ah aasaasayashii daladan ayaa ka hadlay madashii doorashada inta aysan dhicin ka hor waxa uuna ka faalooday aasaaskii dalada iyo halka ay maanta marayso iyo dhibaatooyinkii ay ka soo kadib wali la haroor daladii mayna dhisay maamulkii saddexda gobol ee Koonfur Galbeed la dhisay mayna dooraday mudane Shariif Xasan Sheegaadana madaxweynaha kadib daladii yadib leedisi mayna la dhisay June 2015 la dhisay bilii June todobadii hayti yaa mayna hay daladan la sameeyay may dooranay gudoomiye gudoomiye ku-xigeen dooranay may dooranay iyo xubnoodii kale oo daladaas ka wada shaqeynaya dooranay daladan oo lagu magacaabo Soswensa Somali South West Non-State Actors ee loo yaqaan af Soomaaliga jilayaasha aan dawliga ahayn ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ah mid kulminaysa dhammaan ururada bulshada rayidka ah ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo doorashadii maanta dhacdayna ay ku tartameen 4 musharaxa oo u kala tartamayay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka dalada jilayaasha aan dawliga ahayn ee Soswensa. Cabduqaadir Sheekh Cali Baraka oo muddo 10 sano ah soo ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Baydhabo ayaa ku guuleystay in uu helo codadkii ugu badnaa ee u saamaxayay in uu noqdo gudoomiyaha dalada halka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee daladana loo doortay Cabdiwahaab oo ka soo jeeda degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. hadalla kooban oo doorashadoodii kadib halka ay ka jeediyeen ayaa waxa ay sheegeen in ay ku dadaali doonaan sidii loo horumarin lahaa bulshooyinka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaas oo ay la degeen colaado sakeeye haatan iyo wixii ka dambeeyna ay bilaabi doonaan horumarinta iyo dib u soo nooleynta aasaasayasha nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Hadda ka soo bilaabay maanta meesha soo gaarsiiyay iyo annaga bulshada reedka ay naga go'an tahay in hadii la gaaro waqtiga oo qofka xilkiisa uu ku og yahay in uu iskajiidi iska qabasho inaysan dhicin oo sidaan oo kale aan anaga lagu keeni doono markii 2 sano loo dhamaato taas ayaan madaxda hortooda ka balan qaadayaa dhammaan way magacayeen يا رنتي معدلة كنجار معدلة كتبوا معدلية انتين دورتي قدوميها ورضا موسى الرئيس كوفر قلبت ويلها حنبلية شليدة إن شاء الله ونضم حنبلينا شقة بدرنا إنتالا ويرجع عدسده إن شاء الله إني وضع شقينا رنتي كوضع شقينا هرمركا دلدان يقودها كوفر قلبت إن شاء الله يدي ما سنتين انتي دورتي doorashada kadib waxaa hadalla kooban oo dardaaran halka ka soo jeediyay Malaaqa Cabdiraxmaan Shiine oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo kula dardaarmay mas'uuliyiinta cusub ee la doortay ee dalada Soswensa in ay ku dadaalaan samata bixinta bulshadan kala qoqobka iyo waliba dagaalada sokeeye ay la degeen bulshadii oo dhamaantii waa mas'uuliyad qaadan bulshada may waxa guud ama la badana wala reed dabeecada shal duule waa ka jira dadka hadda maartay hilkan qaaday gudoomiyaha iyo ku-xigeenkii may taawiyay Koonfur Galbeed way arigaan atin doorashadii hoggaanka dalada waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan labada gole ee Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Dooyo Cabdiraxmaan gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin si ay markaasi markhaati uga noqdaan doorashada dalada jilayaasha aan dawliga ahayn ee Soswensa maanta doorashadoodu ay ka dhacday hotelka Horyaal ee magaalada Baydhabo. Mukhtaar Sheekh Aadan Dalmar SBS TV Baydhabo Janay.